السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد language college مقعي ومعلم وهلية إن شاء الله ما انتبحان بلاوينا 10 عصب واللايف lesson وكسابسن spelling tips إن شاء الله انتان بلاوين 10 محان دونا إنكم هاتسن ميشا جوكتين أما ميشا أتكدا ونسين 10 كان إنا نو شكتين إنكم هاتسن مقعينا نو شاك إنكم هاتسن مركا today we have a new lesson. The lesson is called spelling tips. And today I'm going to talk about that lesson inshallah billah ta'ala. Before we start the lesson, I want you to tell me your name and where you're watching the lesson from. Okay, marka inshallah maanta maxaan ka hadlaynaa a life lesson inshallah billah ta'ala called spelling tips. Marka first of all you need to understand arday badan aan weydiiso aan ugu dhahdo macaan spellingka aan ugu adag, please no shake no sharax in ugu dhahan. Marka spelling is very different. Okay, to learn spelling is very different. Spelling is normally dadka markuu baranayo spellingka waa ka duwan tahay markuu qofka speaking baranayo, markuu baranayo reading, markuu baranayo markuu writing sameynayo waa very different. Spelling waa very different. marka laga hadlayo English spelling there is no rules. wax rule ama qaanuun oo la raacayo ma jirto. marka inshallah maanta maxaan idin tusaa process ama steps aad raaci kartid sidaad u bari kartid hadhow marka aad doonaysa inaad barito spellingka. Okay, so today our topic is called spelling tips. marka tips maxaa waaye a way to learn. Okay, a point ama dhibcayaal ama process of learning spelling. Now the first rule is spelling versus reading. qofka markuu baranayo spelling iyo reading, spelling and reading waxyaabaha maxaa ka dhaxeeyo. dadka qaar maxay dhahaan spellingka haddaad doonaya inaad spellingka barto waa inaan akhriyo horta book inaan akhriyo. maxaad fahantiin reading is for you to get information. reading iyo spelling were very different. qofka markuu baranayo spellingka iyo qofka markuu akhrinayo were very different. readingka maxaad u akhrinaysaa sababtaad u akhrinayso muxuu yahay inaad information aad heshid. Okay, you read to get information. To get information. But spelling, yeah, were different. We learn spelling to learn letter by letter. Okay, dadka qaar markay spelling baranayaan maxay u moodaan inaad akhriska iyo spelling isku xiriyin. No, reading iyo spelling ma isku xirno. reading maxaad u akhrisaa sababta reading u akhrinayso maxaa because you want to get information. maxaad doonaysaa information aad doonaysaa, you want information. But spelling markaad doonaysid inaad baratid you have to learn, waa inaad baratid letter by letter. Okay, erey kasto inaad kala saar kartaa lagu baahan yahay. Okay, xaraf kasto inaad kala saar kartid. Okay, haddaba for example tusaalaan siiyo haddaad u fiirsateen xaggan eeda saddexdan erey yah waa same reading ama same pronunciation. kasoo qaad saddexdan these three letters was same pronunciation laakiin spellingka were very different. Okay, now these kind of words ereyashan oo kale kuwan oo kale yeah sees and sees were same pronunciation. qofka markuu akhrinayo yeah ma dareemayo wuu akhrinaa why inuu information inuu helo laakiin spelling is very different. Okay, spelling is different. haddaan usoo qaato sees, this one sees kan okay this is number 1, this is number 1, this is number 2 and this is number 3. Okay, sees yeah this one you need macnaheed hadda af Soomaali ku macnay maxaa waaye inaad wax soo qabatid. you sees in wax soo qabatid. Okay, what does the policeman do? Policeman muxuu sameeyaa he seizes the thief. muxuu soo qabtaa the thief, tuugu soo qabtaa. Okay, marka maxaa u baahanahay erigan maartay seizkan inaad jumlad gelisin, try to put it in a sentence. seizkan macnaheedu maxaa wax inaad soo qabatid, to grab inaad wax soo qabatid, inaad wax soo qabatid laga baahan yahay. Okay, haddii aan jumlad geliyo maxaa dhihi karaa I must seize the opportunity. waa inaan soo qabto fursadan inaan soo qabtan u baahanahay. Okay, dadka marmar qaar maxaa arkaysaa fursad ku imaatay aad mar dambe aad arkaysaa fursadaas oo kale maxaad samaynaysaa you seize waa soo qabanaysaa. so marka waxaan u baahanahay sees and sees in a sentence gelisin.
first one sees maxaa waxayna soo qabatid. Okay, sees waxay uu arko. He sees me going to work. Muxuu arkaa ani oo shaqada tagaayo. Okay, there are different seas in the world. Seas kan macnaha badda. Okay, seas kan macnaha badda. Kan waa badda, kan waa aragtada inaad aragtid, kanna maxaa inaad soo qabatid allaha seas. Okay, so try to put it each one in a sentence geli isku daya in a sentence gelisin inshallah billah ta'ala. Put it in a sentence. Remember, maxaad ogaatiin spelling iyo reading were very different. qofku markuu doonayo inuu spelling barto, he has to remember erey kasto inuu xifdiyo laga baahan yahay. Erey kasto inuu xifdiyo. Memorize. You have to memorize. You have to memorize. Waa inaad xifdisid ereyga. Okay, dadka maxaa la yiraahdaa in psychologist ama dadka oo psychiatrist ama psychologist maxay yiraahdaan there's two type of memory. labo qayb maskaxda maxay u qaybsan labo qayb. Short term memory oo waxyaabo oo aad xasuusanaysid laakiin hadhowna iska ilaawaysid. Long term memory waa waxyaabo oo maxay ahayd oo wiligaaga aad ilaaweynin oo markasto maskaxda ku haynaysa la yiraahdaa long term memories. Marka maxaa la yiraahdaa two types of jirta labo qayb oo qaybsan tahay short iyo long. Okay, marka short term memory macnaheedu maxaa waaye qofku wuxuu soo dhiganaa wuu soo baranaa laakiin wuu ilaawa si tartiibsan oo qun yar uu ilaawa. dadkaas oo kale maxaa la yiraahdaa waxaas maxaa la yiraahdaa short term memory. laakiin wixii markaad baratid aad ilaaweynin oo markasta xasuusanaysid maxaa la yiraahdaa long term memory. markasta waad xasuusanay waad haynaysaa maskaxdaad ku haynaysaa. Why? Because ma ilaawaysid. Now anaga marka spelling baranayno, this is very wrong. In a short term memory mu bahano. We don't want short term memory. Spelling hada barano waa inaan markasto niyad ku hayna aan ilaawin. Okay, so that is long term memory aan u baahana. We need long term memory. Maxaan u baahanahay long term memory aan u baahanahay. Marka spelling markaad baranaysid, you have to remember long term memory and we have to memorize the word sidaan wiligeena aan u hayno niyad ku hayno aan ilaawin. dadka qaar way akhriyaan way bartaan laakiin after 10 days tawan cisho markay kasoo wareegato way ilaawaya. qofka ardaygu wuu ilaawa ama qofku wuu iska ilaawa. He forgets uu iska ilaawa. waxaas muluban kuwaas oo kale maxaa la yiraahdaa short term memory. We do not want short term memory. We do not want short term memory. We want long term memory. maxaan u baahan maxaan rabnaa long term memory. wixii spelling hadaad baratid inaad wiligaa aad ilaawin laga baahan yahay. aad markasto aad niyad ku haysid ama xasuusinaatid laga baahan yahay. Always remember the word. marka spelling maxaa laga baahan yahay ereyga markaad baranaysid number 1 waa inaad qortid. Okay, number 1 maxaa waay inaad qortid. You have to write. hadaad doonaysid spelling inaad xasuusinaatid number 1 maxaa laga baahan yahay inaad qortid. Number 2 maaha inaad qortid 1 time 2 time 3 time maaha. maxaa laga baahan yahay inaad qortid at least 100 to 300 times. 300 jeer inaad qortid inaad jumlad gelisid laga baahan yahay sida spellingka u ilaawin. Okay, because markaad ku celcelisid maxaa la yiraahdaa short short sorry little often and little. Often and little. maxaa la yiraahdaa often and little. inaad wax yar qortid. haddii spellingka doonaysid inaad xasuusinaatid maxaa la qoraa ereyga aad qoraysid waa inuu noqdo 10 times qor. kasoo qaad subaxdii aad soo kacday 10 times aad qortay. Okay, haddana maxay ahayd maxaa la gaaraa duhurkii haddana 10 times kale aad qoraysaa. maqribkii 10 kale aad qoraysaa. habeenka markaad sii saxinaysid 10 kale sii qoraysaa. often maxaa inaad ku celcelisid. markaas aad ku celcelisid laga baahan yahay. little waa in wax yar inaad qortid laga baahan yahay. Okay, maanta maxaa laga baahan yahay inaad at least qortid content jeer. contentkaas inaad u qaybisid 5 salaadood inaad u qaybisaa ku fiican. ereyga markaad qoraysid ama ereyga markaad xifdinaysid maxaa laga baahan yahay ereygaas naftigiisa inaad qortid content jeer inaad maalintii qortid. Okay, haddii aad doonaysid inaad maalintii content jeer inaad qortid maxaa laga baahan yahay
iyo kontonkaas jeer yaa inaad u qaybisid shanta salaadood inaad u qaybisid marka subaxdii soo kacdid 10 qor duhurkii 10 kale qor maqribkii ama casirkii 10 kale qor cishaayigii 10 qor habeenkii marka sii seexinaysid 10 qor isku game imsay ku noqonaysaa konton okay maxay ku noqonaysaa konton so remember spelling markaad baranaysid rule 1 maxaan dhahay waa writing not reading maxaan dhahay waa writing waxaa u baahan tahay inaad qortid maaha inaad xifdisid okay sorry maaha maxaan dhahay waa inaad qortid okay maaha inaad akhrisid okay waad qoraysaa laakiin akhriska spelling ma lagu barto spelling maxaa lagu bartaa qoraalka lagu bartaa 1 2 maxaan u baahannahay inaad ku celcelisid maalintii maxaan kaa baahanahay at least inaad 300 ilaa 400 inaad ku celcelisid okay marka maxaa la sameeyaa often and little waa dadku way soo gaabeen maxaa often waa inaad maxaad soo celcelisid little in yar qortidne okay to make it short and at the same time easy qofku easy u dareema hadduu maalin kasta subaxdii markaa soo kacdid aad 10 jeer qortid waa easy duhurkii haddana 10 kale qoraysa haddana casirkii 10 kale maqribkii 10 cishaayigii 10 so maalintii markaa dhamaysid at least maxaa qortay 50 times okay markaasoo kale maxaa dhacayo long term memorygaaga uu fadhiisanaa oo markasta ma ilaawaysid because maalintii maxaad qortay at least 50 times aad qortay 50gaas kontonka jeer aad qortay waad sii qaybisay maxaad u qaybisay shanta salaadood aad u qaybisay markaasoo kale qofku ma ilaawo wuxuu bartay okay haddii for example tusaale aan soo qaato suurat al-faatixa markaad akhrinaysid maxaa salaad kasta waad akhrisaa salaada subax markaa soo kacad waad akhrisaa salaadii duhurkii waad akhrisaa casirka waad akhrisaa maqribka waad akhrisaa cishaaga waad akhrisaa weligaa ma ilaawaysid suuradda ma ilaawaysid why because maalin kasta waad akhrisaa salaad kasta waad akhrisaa wixii waa saas haddii aad doonaysid spelling inaad baratid waa inaad qortid aday oo maxayd kala qaybinaysid maalinta shanta salaadood aad u kala qaybinaysid subaxdii markaad soo kacid qortid casirkii qor duhurkii qor maqribkii qor cishaayigii qor okay marka remember spelling saas lagu bartaa spellingka maxaa lagu bartaa qoraalka oo soo gagaabisid oo soo noqdo okay that is very important rule so saddexdan eray c's haddaad u fiirsatiin waa same pronunciation waa same reading waa reading waa isku mid laakiin spellingkii waa different markaasoo kale maxaa samaynaysaa waa inaad qortid c's kan macnaheed maxaa this is what kan macnaheed maxaa waay this is what soo qabashadaad soo qabanaysid c kan macnaheed maxaa waay c's waa same pronunciation c's waa inaad soo aragtid iyo c's kan macnaheed maxaa waay badi okay so eri saddexdan maxaan u baahanahay mid kasta maxaan u baahanahay inuu ardayga jumlad geliyo insha Allah maxaan u baahanahay jumlad geliya comment section kusoo qora idin comments qaybta comment-ka kusoo qora aan arko okay haddaba aan u fiirsano qaybta comment-ka we have maxaan u jeednaa Muna from Muna okay Muna welcome and joining us okay we have Abdikarim from Kenya we have Abdullahi welcome Abdullahi Abdullahi Salat from Hargeisa Mogadishu today I don't have internet okay Abdullahi the Mogadishu people do not have internet Zahra from UK welcome Zahra thank you very much next Ahmed welcome my dear student we have Hassan from Djibouti welcome Hassan Mariam from Denmark thank you for Mariam Abdullahi from Sweden thank you Abdullahi I'm very interested to listening to the lesson thank you my dear student you're welcome so Barkhad muxuu yiri I seized the thief yesterday maxaan soo qabtay tuugaan soo qabtay I seized the thief yesterday waa past tense marka maxaan ka dhigas dia raacinaysaa seized I seized the thief yesterday marka past tense ka dhig okay next I am from Abdullahi from South Africa I always like to listen to your lessons thank you very much Mahmoud from Djibouti welcome Mahmoud Ayan from Sweden welcome Ayan hello my dear student Al Khair welcome Al Khair my dear student
Mulkhair bint Muhammad. Okay, you must seize this strike and seize wears it. May go to the seas with it. Okay, that's good. All right, you must seize this strike. Why not قويت strike the strike and قويت? That's very good. Seize wears it. He sees where it is. He sees where it is. Okay, and may go to sea with it. That's very good. Ahmed from he's watching from Abarso. Okay, welcome Abarso. Abd Fattah from London. Muna from Sweden. Thank you from welcome Muna. Qadar. Sorry, Abdul from Qatar. Okay, Qatar. وقطر QATAR. Okay, Qatar. Ibrahim from Sweden. Welcome, my dear student. Okay. Okay, I have seas. maxaan haysta badad badan ama bad badan aan haysta. That's good. Okay, Abdullah from India. Okay, I am from Boroma. He sees his son and kills him. He sees his son and kills him. Okay, next we have Yunus from Bur'a. Yunus, welcome Yunus. Okay, and then we have Ahmed Nadif from Somalia. Okay, we have many people. marka maxaan baahanahay sentence kana jumlad gelisin. He sees. maxaad ogaatiin? He sees Abdullah maxaa he sees yesterday so many people who were fighting each other. maxaa he sees yesterday so many people who were fighting yesterday. Abdullahi saasa. Okay, next we have Ahmed from Canada. Okay, I saw different seas last year. maxaan arkay badad kala duwan aan arkay. That's good, thank you very much. Okay, soo badiya haddaba ardada daawanaysa idinka mahadsan. Comment section kusoo qora. marka seas waa inaad soo qabatid, seas waa inaad aragtid, seas waa badi. marka mid kasta waxaan u baahnay inaad jumlad gelisiin. Okay, number 2 ama qaybta bid haddaan tagno, tease iyo tease. Again haddaad u fiiristiin, same pronunciation, same reading. Reading waa isku mid, pronunciation ama akhriski waa isku mid. qofka haddaad doonaysa wixii inaad baratid akhris ku baratid, spelling haddaad doonaysa inaad akhris ku baratid ma ku bari kartid akhriska. maxaad u baahan tahay inaad ereyga naftigiisa inaad xifdisid. hadda tease iyo tease waa same pronunciation, however macnihii wuu kala duwan yahay, different meaning, different pronunciation, different meaning and different spelling. marka tease ya waa markaad qofka ka xanaajinaysid. okay, mar badan aad arkaysa iskuulka markaad joogtid, Ahmed you are fat, Khalid you are fat. markasto qofkaas muxuu sameynaa? wuu ka xanaajina. so tease waa marka qofka ka xanaajinaysid ala yiraahdaa tease. you annoy or you angry someone. qofka waad ka xanaajinaysaa ama waad dhibaysaa. okay, for example maxaad dhahaysaa Maryam you are short. Maryam waad gaaban tahay. so maxaad sameynaysaa? you are making someone angry. waad ka xanaajinaysaa qofka markuu wuxuu oo jecleenin aad ku samaysid wuu ka xanaaqa. so tease macnaheedu maxaa waaye? that is the meaning of tease. Tease means making someone angry by telling them something they don't like. qofka waad ka xanaajinaysaa adoo u sheegaysid waxyaabo oo qofkaas jecleenin. okay, so tease. okay, tease. so tease kana, this is the tease. this one waa make it someone angry. qofka waad ka xanaajinaysaa. tease laakiin maxaa waaye? shaah. number 2 kan maxaa waaye? waa shaah. okay, this is shaah. There are different types of teas. There is white tea, there is green tea, there is black tea. Teas معناها هاي شاهي نفتي على هذا tea. Okay, teas. Teas معناها هاي number 1 معناها هاي this teas معناها هاي قفك مركز كحناجينيس على هذا teas. Okay, so let's look at the comment section. أردنا نرجع. Teacher, see or sees? Sees. مركز كانوا sees. Okay, but this is plural. Well, plural. C was singular. Okay, C was singular. لكن sees were plural. Okay, I seize my handbook in order to read. Very good, Ahmed. That's correct. I seize my handbook in order to read. maxaan soo qabtay ya buugga lagu akhrinaay si aan u akhriyo. Okay, I don't
seize the dog because I don't like. Ma soo qabtay eyga ma soo qabtay because ma jecli. I don't seize the dog. Eyga ma soo qabtay because I don't like. Very good. Okay. I saw different seas last year. Badad badan oo kala duwan aan soo arkay. So this is very good. Waa ujeedin haddaba number B kan iyo kan jumlad geliya. Tease iyo tease. Waa same meaning, sorry, same pronunciation, laakiin macnihii iyo spellingkii waa very different. Marka tease macnihiisa sidaan sheegay qofka markaad ka xanaajinaysa la yiraahdaa tease. Marka idinkoo maadsan maxaad gelaysiin jumlad geliya. Try to put it in a sentence, okay? I'm waiting. Waan sugoyaa ardada waan sugoyaa. Idinkoo maadsan. I have green teas. Well done. Faiza Maitri, I have green teas. Welcome. Faiza kusoo dhawow. I have green teas. I don't want to tease anyone. Ma doonaya inaan qof ka xanaajiyo. Very good. Okay, so yaan sugo qofka ardada kalaan sugoyaa. I have a block of tea. Okay. I tease you. Okay. Nice. Next, yeah, Princess Barwaco. Welcome, Princess Barwaco. I have. Marka you have a block of tea. Block maaha. Waa laga fiican yahay block. Black tea. Sorry. Black adonaysa. Black inaad dhahdid. Maaha block. Block aa qortay. Black. Waa B-L-A. B-L-A. Okay. So idinka maadsan. Make sure you write in the comment section kusoo qora xagga hoose. Comment kasoo shaqeeya. Let's see if you make a good sentence. Marka jumlad geliya. Okay. Stop teasing me. Very good. Ardada maxay soo qortay? Stop teasing me. That's very correct. I drink the cup of tea. That's good. I drink a cup of tea. I tease my friend because he calls something he don't like. I tease my friend because I call him something he doesn't like. Maxaan u yeera magac aan u yeera oo aan si jecleenin. Okay, Ahmed saas dhahaysa. He teases me because he don't give me my tea. Indeed. Okay, Mahmoud, that's a very good sentence. Si wanaagsan oo dhistay. Haddaba aan ka saaro istaan ka saaro. He teases me. Okay, because he doesn't give me a cup of tea. Okay, I need black tea. U fiirsada spelling haddan ka hadlay spelling waa muhiim. Marka make sure markaad qorayso xataa spelling u fiirsada. T arda soo qoray T-E-E-S. Muxuu soo qoray T-E-E-S. That is wrong. Waa khalad. T waa T-E-A-S. T-E-A-S. Okay, can you make for me a cup of tea? Can you make me a cup of tea? That's good. I will tease you. Why will you tease me? Why do you want to make me angry? Abdinur Mahatri, I will tease you. You're going to tease me. Okay, that is very, very bad. Do not tease your teacher. I drink tea every morning. I drink tea every morning. Very good. Thanks, teacher. I have been learning English since 2018, but I can't read or write well, so what can I do? My dear student, if you want to read and write, you have to improve your reading. You have to read more. You have to read and read more. Reading takes time. Writing takes time. However, qofka hadduu luqad cusub baranayo, it takes time. Waqti qaadataa. Haddaad ku degdegtid, ma baranaysid. For you to writing, haddaad doonaysa inaad baratid, writing is very simple. Haddaad doonaysa wax qortid, maxaad samaysaa? First of all, take a book, as I said before, book soo qaad, copy and paste. That means wixii meesha ku qoran mar labaad qor. Okay, let's see. I was only teasing you. Why are you teasing me? Abdinur, why would you want to tease me? Again, Abdinur, I can see you like teasing people. I don't want to tease. I teased him. I like to tease you. Princess Barwaco, why do you like to tease me? Why do you like to tease me? Can I have a cup of tea? Okay. Furhiya, Furaj,
Abdinur, what masintin ardadina, si wanaagsan aad usoo shaqaynaysiin. I can see. Can I have a cup of tea? Very nice. I'm teasing him with a car. Okay, Eunice. Okay, I'm teasing him with a car. Kaas waan fahm waay. Marka ii sheeg af Soomaali igu sheeg adoo madsan. Okay, teasing is not funny. Inaad qofka ka xanaajisid ma wanaagsano. Yes, dadka isku mid maaha. Dadka qaar way jecel yihiin, dadka qaarna way neceb yihiin. That's correct. Rob. Okay. Haddaba aan usii wareegno qaybta saddexaad, stationary and stationary. Haddaba u fiirsada. wax farq badan mu dhaxeeyo. Farq yar u dhaxeey maxaa waaye? Waa eedan iyo either. wax kale u dhaxeey maaha. Stationary was same pronunciation, spelling ka xataa way isku dhow yihiin. Hal eray ama one letter aka maqan. Eedan iyo either. Stationary is stationary. Same pronunciation. However, different spelling and different meaning. macnihiisa waa different. They're different in spelling and they're different in meaning. Stationary, haddaad u fiirsan kan number 1, this one, stationary, waa markaad taagan tahay. You are in stationary, waa taagan tahay, ma dhaqaaqaysid. Okay, ma dhaqaaqaysid. You are in stationary. Okay, you are in stationary. Okay, so marka maxaa la yihahdaa? The students are ordered. Ardada maxaa lagu amray? The students are ordered to be stationary. Ardada maxaa lagu amray inay noqdaan stationary, inay taagan yihiin, inay dhaqaaqin. Stationary. Okay, however, stationary kan ERY, kan ida maartay number 2 gan, ERY ku dhamaanayo. kaas macnaheed maxaa waaye? Stationary waa alaabta xafiiska ee taaslo. alaabta xafiiska sida qalinka, warqadda, computerka iyo fileka, warqadahaas oo kale maxaa la yihahdaa? Stationary. meesha laga helo stationary bookshop ma maqlin? dadka qaar way arkeen meesha alaabta warqadaha ama A4 size-ka laga soo iibsado ama buugaagta laga soo iibsado, maxaa la yihahdaa? Stationary. u fiirsada kan macnaheed maxaa waaye? taagintaa taagnaanaysid, aad dhaqaaqayn. Stationary waa ma dhaqaaqaysid, waa taagnaanaysaa. kan macnaheed maxaa waaye? waa meesha laga keeno warqadaha laga soo iibsado, qalimaanta laga soo iibsado, buugaagta laga soo iibsado aa la yihahdaa stationary. So a different meaning. Stationary maxaa waaye? stagnaanaysid. Stationary macnaheed maxaa waaye? meesha ama bookshopka ama meesha qalimaanta iyo buugaagta iyo warqadaha laga soo iibsado la yiraahdaa stationary. marka isku daya inaad labadan gelisiin sentence geliya. idinkoo mahadsan, put them in sentences. Okay, waan u jeedaa ardayda qaar way soo qoreen. I don't like a tea because most cafeteria of small add more sugar. Okay, I don't like tea ma jecli because sababta maxaa dhacay? Most cafeteria in Somali add more sugar. maxay ku daraan? sokor badan ay ku daraan. That's good, Ahmed, thank you very much. My sister has teased me. walaashay way iga xanaajisaa. I annoy my friend when he talks to me a lot. Teasing is not funny. Okay, marka Noura, Ahmed, Mohammed, Khalid, waad mahadsantihiin idinka, waan arkay. Rob muxuu yiri? I'm stationary right now. hadda ma dhaqaaqoy, waan taaganahay. Very good. I'm stationary right now. I'm working with Halima Stationery since 2017. maxaan ka shaqeeyaa Halima Stationery. u fiirsada daba stationery maxaan ka shaqeeyaa Halima Stationery. waa ERY, waa ERY. marka bookshop uu ka shaqeeyaa stationery oo STATION ERY. spelling u fiirsada. Okay, the car is in stationery for a long time. gaariga wuu taagan yahay for long time. Very good. The car is in a stationary mood for long time. haye, I have a black tea and white teas. Well, good. You must be stationary. waa inaad dhaqaaqin. Okay, I am stationary beside the road. Okay, that's good, not bad. You can improve. I'm standing
beside the road in a stationary way. Okay, next, I am standing stationary in a good place. marka princess barwaaq maxay I am standing stationary in a good place. I'm stationary in class. Okay, very nice. I'm stationary in a stationary. Okay, Faiza, well done. Trying to labada areas ku isticmaashay hal sentence gelisay. Very good. I have seen you when you were stationary in the stationery. Okay, very good. I brought new books from the stationery last week. Good. My dad had been stationary today. Very good. Okay, stationery is I went to the stationery to get books and pencils. Very good. Okay, stationery is a bike at the gym that is attached to the floor. That's good. Very nice. marka ardada kale aan sugno haddaba soo badiya exercise-ka. Yes, I'm working stationery center. I'm working at stationery center. maxaan ka shaqeeya at ATIA gelinaysa Cabdillaahi Mooh. Okay, I'm working at stationery maxayd center. Okay, very good. That's very nice. waad fiican tahay. haye ardada kale waan sugaynaa. haddaba isku daya inaad number C's iyo T's iyo stationery, A iyo B iyo C saddexdan maartay mid kamida inaad qaadatid jumlad geliya. all three of them ku isku daya. Okay, waan sugaa ardada. Remember spelling maxaa lagu bartaa qoraal. Do not forget. haddaad doonaysa inaad ereyga inaad baratid aad ilaaween waa inaad qortid. Slowly, take your time. Little and often. Little and often. in yar qor. maalin kasta maxaad qortaa hal eri baro. maalin kasta one word spelling is baro. haddii aan maalin kasta one word spelling si wanaagsan aad u baratid, it's very easy. Okay, hal eri baro maanta. berin maxaa samaynaysaa ereyga maanta baratay iyo eri cusub haddana eri kala baran doontaa maalinta saddexaad. haddana eri afraad baran doontaa maalinta afraad. That's very important. Okay, let's see. He saw at the stationery. He wanted to open the stationery. Okay, I'm working at the stationery center. Nice. I'm a stationery to listen. I'm in a stationery mood to listen. Okay, that's very good. waad fiican tihiin. So remember, haddaad doonaysa spelling inaad baratid, don't read. reading maaha inaad ku baratid. maxaad ku baranaysaa writing. writing slowly, little and often. inaad in yar qortid laakiin aad soo celisid. aad mar labaad mar saddexaad ku celisid. Okay, thank you very much. aad umahadsantihiin ardadana daawanayso. insha allah this is only one of the rules. maxaa jirto many other rules insha allah aan soo ken doono billah ta'ala. Okay, so we have few more words ardada soo gelinayaan. The police seized the robber. I seized the thief when he was in a stationery. Very good. But I passed the first two. Okay, Hamda maxay dhahday ma garanay labada hore. Seize waa inaad soo qabatid. wax marka soo qabanaysa la yiraahdaa seize. Okay, seize waa inaad aragtid. Seize waa badda. marka saddexdood waa isku macno. Sorry, saddexdood waa same pronunciation. However, macnihi were different. The meaning is different and the spelling is different. Tease and tease. Tease waa marka qofka maxay ahayd ka xanaajinayo, qof kale ka xanaajinayo asi oo caynayo ama asi maxay ahayd waxyaabo khaldan u sheegayo ama u yeerayo. Tease na macnaha waa shah. Okay, marka Hamda xafin inaad fahantay. The police seized the robbery. Okay, I was working at the stationery. Okay, so this is some of the vocabulary. Ahmed Wali muxuu yiri I'm stationary downtown area. I'm at stationery in a downtown area. That's nice. Marka inshallah I will see you next time inshallah billah ta'ala. So let's end the lesson here and I will see you next time. Assalamu alaikum.